بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi Channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshada. Maanta waxaan ka hadlayaa arrin ka duwan arrimihii aan ka hadli jiray, taasoo ah geeridii ku timiday odagayga bishii March, Allah u naxariistee. geeridaas oo sababteeda ay ahayd xanuunkan hadda adduunka oo dhan saameeyay COVID-19. Allah u naxariistee, odayga xanuunka wuxuu ku bilaabmay intii aananba wadankan Ingiriiska lagu dhawaaqin lockdownka. sida aad wada ogtihiinba wadanka Ingiriiska lockdownka wuxuu bilaabay waqti dambe oo ka dambeeya Yurub inteeda kale. iskuulada waxaa officially naloo xiray 23 March oo lockdownkana wadanka uu ku bilaabmay 23 March. hase yeeshee odayga Allah u naxariistee 14 March oo Saturday ah gurigeena waxaa ka dhacay kulan aan lahayn. gabar yaroon aan eedo u ahay birthday-geedii ahayd, waa isu wada nimi reerkoo dhan iyo caruuraheenii. wuu iska fiicnaa maalintaas 14 March. maalintii 15 March oo axad ah ayuu yiri hergaba i haya. hergebka waa soo yara kordhay. wiigi kale isniin markii la gaaray iyo talaado waxaad ka dareemaysay codkiisaad ka dareemaysay inuu wax yar xabeebsan yahay. qufac saas u badan ma lahayn iyo wax qandha iyo waxaas ma jirin. wiigaas bilaabmay ee ka dambeeyay 14 March iyo 15 March. wiigaas wuu iska yara xanuunsanaa, wuu iska qufqufacayay, wax serious umaynan arkayno. hergeb uu isaga ekaa, hergeb qalalanna weliba ma ahayn, hergeb qoyan uu ahaa. markii Saturday-dii kale la gaadhay 21 March uuna waxaan ku leeyahay wax qufacaan shaki buuba leeyahay, intaan hadda waa qufqufacaysay, xanuunna waa la sheegayay, bal ma dhakhtarka tagtid ha ku baadhaane. adigu ambalastiaan ugu yeedhnay. ambalaas la-aan meesha lama tegi karee. itixaan badan iyo interview iyo taleefano badan kadib waxay ogolaadeen inay kaxeeyaan oo hospitalka lagu soo baaro. 12 duhurnimaa la kaxeeyay. 2 saacadood kadib uu ila soo hadlay, wuxuu yiri isoo doon x-ray iyo dhiigaga laga qaaday. waxay dhaheen iska baxa, waa fiican tahay, gurigaaga aad. bas waan baxay, waan doonay. halkaas hospitalka nagama foga, xaafada aad uu noogu dhow yahay. jidkuuba iiga hor yimid isagoo lugaynayo, kolley filayay inaan ka hor imaan doono. waa soo kaxeeyay. taas waxay ahayd 21 March oo Saturday ah. guriga iska imaanay. axadii wuu iska yara fiicnaa. isniintii ayaan maxay ahayto uu qufaci uu soo batay. isaga ma lahayn qandho iyo waxaas ma lahayn. qufac ay sheekada ahayd iyo neeftu qabqabanaysay. isniintii markii wixii soo wada bateen aan ogahayna inaa Saturday-dii hospitalka inta la geeyay la soo celiyay. habeenkii isniinta marka waxyaabo uun iska mudaawaad ahoo farsamooyin guriga ah ayaan u sameeyay. alxamdulillah habeenkii marka qufici waa ka yaraaday, si fiican uu iskaga seexday. ma istaghfirullah, kaas axadii ahayd. axadii isniintii wax yar asaga saas oo kale farsamada guriga adi marka isniintii wax yar uu kasoo yara daray. markuu isniintii kasoo daray waxaan go-aansanay marka talaado inaan dhakhtarkii lagu celsho. dhakhtarkiiaan la hadalnay. ambalaasaa lasoo diray. 5 galabnimay kaxeeyeen. markay geeyeen taleefankiisu iska sitay, xayuu iska ahaa. qof sakaraadoo ma garanaysaa aan socon karin ma ahayn. asagaa maxay ahayto isu diyaariyay ambalaasta, qabaystay, dharkiisuu gashtay, maxay ahayto kabiisa asagaa gashtay, lugihiisa asagaa ambalaasta ku koray. weliba si fiican intuu usoo labistay. ciyaalka waxay ku furjeynayeen qof jiranba uma ekide, waay aad dharkan u gashatay inaa ambalaasta ku raacdid. ciyaalka ku furjeynayeen. anyway, Allah u naxariistee, adigu sidii uu ambalaasta lugihiisu ku fuulay. bas
uuna soo wacwacayay habeenkii oo dhan 5 galabnimo ahayd markay qaadeen habeenkii oo dhan wuu nala soo hadlayay update-una siinayay hadda x-ray laga qaaday hadda dhiiga laga qaaday hadda swabkii coronavirus-ka laga qaaday maxay hadda waada la igeeyay hadda saana la yeelay habeenkii oo dhan wuu na soo wacayay adigu markii adigu 10 meelahaas ay ahaydaan dhahay okay waa seexanayaan teleefankana waa is agdhigayaa hadday wax soo kordhaan ila soo hadal 1:22 daqiiqo marayto isoo wacay teleefankan ku booday waa qabtay wuxuu yiri raali ah inaan kaa naxiyay mar rabin oo urdada aan kaa toosiyay laakiin nimankii ay yimaadeen waxay yiraahdeen oxygen-kaaga waa very low marka arrintaasna khatar ku jirta haduu oxygen-ka uu daad loo noqdo marka waan ku kaxaynaynaa intensive care unit-ka lagu geynayaa ventilator lagu rakibayaa under anesthetic oo ku wada suuxinaynaa marka u sheeg reerkaagan inaan teleefon kan ka soo wici karin haday update u baahdaan ay annaka nala soo hadlaan marka intaasaan ku sheegayay ogow marka waxaan iri waayahay bal waa u duceeyay waxaan ku iri insha Allah khayr ay noqonaysaa marka de waa ka subaxdii markaan dhakhtarka la hadlay waxay yiraahdeen ninkii waa stable waaye mashiinkaas ku rakiban wax cusub oo aan ku sheegno maanta ma jirto arbacadii ahayd maalintaas khamiistii markaan la hadalnay waxay yiraahdeen waa fiican yahay oxygen-kiisi waa soo noqonayaa waa soo kordhayaa waxaan isku dayaynaa hadduu saas ku sii socdo inaan daawada aan ku suuxina yarayno si uu soo tooso marka waa kaas that was good news khamiistii jimcihii markaan la hadlay haddana waxay yiraahdeen dhakhtarada maanta kormeerka sameeyay waxay ugu aansadeen inaanay ku degdegin inay ventilator-ka ka saaraan maxaa yeelay hadda waxaa laga yaabaa inta quickly ventilator-ka laga saaro haddana inay oxygen noqoto marka waxaan rabnaa inaan make sure garayno inay oxygen levelkiisa ay joogto levelkaas aanay ka dhacaynin marka waa fiirinaynaa labadoo maalmood oo kale waa ku haynaynaa okay maalin walba la wacan waxay dhahayeen waa improve garoobe iyo waa fiican yahay iyo waa stable ugu dambeyntii Saturday-dii markaan la hadlay oo 28 March 12 duhurnimo aan wacay waxay igu yiraahdeen ninkii telefoonka iga qabto horta waa yara yiriyo wuxuu ii sheegay garan waayay laakiin finally wuxuu ii sheegay inuu ninkaagi waa dhintay 5 daqiiqo ka hor uu dhintay raali noqo inaan ku soo wacnaan rabno ku sheegno arrintaas marka waa kaasa marka shoogi anigana waxaan ku hadlaaba garan waayay say ku dhacday soo taad hayseen maalmahan oo dhan waa fiican yahay waxaan rabaa iskaga hadlay ninkan wuxuu leeyahay waa raali noqo wax kasta oo aan qaban karno waa isku daynay waa save garayn kari weynay waa ninkaas waa dhintay adigu halkii aan maxay tahay aniga caruurtii meeshii oo hin la fadhiisanay dadkii oo dhan telefoon u dirnay sheekada wixii intaas ka dambeeyayna de ma raba inaan ka hadlo waxay ahayd geeri aynaan filayn oo ma garanaysaa si dhaqso ana u dhacday aanan qurxoonayn maxaa yeelay qofkaagiyo hadlayo xay oo maskaxdiisa joogto lugiisu ku soconayo inta laga kaxeeyay mar qor hadana jawaabtii ay saas noqotay waxay ahayd mid aad u xanuun badan qofkii aadan la joogin qofkii aadan arkin qofkii macnaheedu aydan si arag boode isu qofkii asna aadan kor fadhiino uu ku arkayn inaad kor fadhidid you know waxay ahayd very tough time wali tough time kina waa ku jirnaa dad badan oo muslimiina iyo dad badan oo Soomaaliyana waa la kulmeen geerida noocaas ah
laakiin de waa amar ilaahay oo wixii ilaahay qadaray dee cidna ma bedelayso. intii ku dhimatay xanuunkaana waa in ay u qornayd, habkay u dhimanayeen waa habkaasuu ahaa, ama ha qurxoonaada ama yaanu qurxoonaanine. maxay ahayto alxamdulilah dee aniga ciyaalkaygiiynanba cidna kale noo imanine. sibay dhaantaa. dad waxaaba jiraba keligood guri dhex fadhiya oo xitaa caruur aanay hareeraha ka fadhiyin. ani alxamdulilah 6 caruura ilaahay i siiyey, 6 hareeraha iga fadhida. inaan ooyo iyo inaan calool xumaado nama ay ogola. ana ma ogoli inay i arkaan anoo ooynaya ama anigoo niyad xun. marka waa is support garaynaynaa. maasha allah 6 qof hareeraha iga fadhiya alxamdulilah. dad waxaa la ii sheegayay aanay cidna ag fadhiyin. 6daas qof balaas labadu mid walbaba 2 indhood, 12 indhooda i eegaya oo iga ilaalinaya inaan macnihii ooyo ama aan saa noqdo. alxamdulilah. marka maxay ahayd horta wixii dhacay waa dhaceen, waana amar ilaahay. insha allah ilaahayna intii ku dhimatay ee islaamka ah insha allah ilaahay jannu geyn doonaa. intay ka tageenna insha allah ilaahay qalbiga waa u qaboojin doonaa. insha allahna waa laga bixi doonaa waqtiga adag ee lagu jiro. laakiin hadda ma garanaysaa arrintan markay nagu dhacday kadib, xanuunkan horta waa xanuun adduunka ku cusub oo dadkoo dhan ay baranayaan, maca dadka dhakhaatiirta iyo scientiska iyo everybody is learning. wejiyadiisa xanuun hal weji loogu soo hagaaga leh ma aha. maalin walba wax cusub ayuu lasoo baxayaa oo la baranayaa. waxyaabaha hadda la bartay waxay tahay oo dadka hadda kadib uu ku dhici doono anfici doona, in aan qofka lagula degdegin in la ventilate gareeyo oo ventilator lagu rakibo. hadda waxay ogaadeen ventilatorka inuu damage leeyahay, especially qofkuu ka weyn yahay ama qofkii xanuuna qaba kale aanu ventilatorka anfacaynin. oo to the level dowladda ay xitaa kansashay oo dharo badan oo ventilators ay dalbadeen. marka waxay ogaadeen inaan ventilatorska ay waxyeeladooda badan tahay, waxtarkoodana uu yaryahay. research la sameeyeyna lagu sheegay in 83% dadkii ventilatorka lagu rakibay ay ku dhinteen. marka horta wixii dhacay waa dhaceen, laakiin maanta warka aan hayno haddaan hayn lahayn ventilator maynan ogolaaneen. ilaa qof bini aadanaa tahayoo waxbaa dib u eegeysaayo maxaa qaldamay oo say u dhacday, oo bini aadanaa nahay. inkastoo amar ilaahay dhacay, amarka ilaahayna aynaan ka weynayn, laakiin haddana bini aadanaa tahay. markaa keligaa tahay waxbaad isweydiinaysaa, see wax u dhaceen, maxaa qaldamay, maxay ku dhacday, waxbaad isweydiinaysaa. waa wax caadiya. marka aniga hadda horta dee dhakhtar ma ihi, laakiin ventilator qofka in lagula degdego, dadkii dhakhaatiirta ahaayaaba hadda ka qaylinayo o dhahaya ventilator ma ahada answer. ninkan prime ministerka wadanka u ahna markuu xanuunsaday ventilatorka way kala dadaaleen inay ku rakibaan, waa diideen. maxaa yeelay ventilatorka jaaniska survival jaaniskiisaaba yar. qofka ventilator lagu rakibo jaaniska uu kaga kacayo waa very very low. marka dadka xanuunkan uu hayo isku daya haddaad gurigiina ku survive garayn kartaan inaad ku survive garowdaan oo gurigiina joogtaan, dhakhtarka aydan ku degdegin. koow
labo mucjisada arrintan ay leedahay waxay tahay odayga iyo aniga ma ahayn 6 caruur 8 qof aan gurigan ku noolayn maasha Allah 8 qof odaygu la baxay xanuunkii 7 kale magaalada oo dhan waa na soo wacaysaa seetihiin caruurta ka waran xanuunkii ma idinku dhacay xanuunkiisa wax aan isku aragnay iyo wax nagu dhacay toona ma jiraan maxaa yeelay waxyaabaha hadda xanuunkan la bartay ee cusub ee la ogaaday waxay tahay in dadka very high percentage dadka aan xanuunkaba laga arkaynin symptomskiisa aanay symptoms lahayn xanuunkiina ay qabaan oo laga qaadi karo symptomsna aanay tusaynin walaa hergab walaa madax xanuun walaa dhuun xanuun walaa neef celis aanay waxba jirin marka symptomska dadka symptomska aan showgaraynaynin ayaa aada u badan gurigayga xanuunkaas goortuuna soo galay maba naqaanaba suu nagu soo galay iyo say ku dhacday odayga uunbuuba la baxay malakal moodkii uunaa soo galay asagu qaatay marka maxay ahayto waxyaabaha kale oo xanuunkan hadda la bartay oo baaritaanada la sameeyo lagu ogaado waxay tahay oo awal la islahaa ma dhici karto in xanuunka qofka uu ku dhaco waxaa la yiri qof hadduu mar ku dhaco mar labaad inuu ku dhaco ma aanay ahayn because markuu qofku ku dhaco dee immune ayuu ka noqonayaa xanuunkii marka hadda dad South Korea lagu baaray waxaa la ogaaday dad uu hore ugu dhacay inuu mar labaad ku dhacay arrintaasna warwaray leedahay maxaa yeelay waxaa la filayo qofka hadduu mar ku dhaco inuu jidhkii difaac sameynayo oo aanu mar labaad ku dhacaynin laakiin hadda dadka la baaray South Korea waxaa la ogaaday in dad uu hore ugu dhacay uu mar labaad ku dhacay waliba si dhaqso ah arrintaasna warwarkeeday leedahay laakiin wali ma cadda what percentage uu mar labaad ku soo noqon karaa kullay waxaan qiyaasayaa inuu percentage hoose yahay dadka uu mar labaad ku dhici kara oo badi percentage-ka dadka uu hore ugu dhacay inaanu ku soo dhicin ay u badan doonaan insha Allah marka haddii xanuunkan uu ku hayo oo aad guriga joogtid waxa kale oo aan kugula talinayaa dadka neefta qabataa la yiri marka wax neef qabadka ka caawinaya aniga tala ahaan way dhakhtarna ma ihi laakiin wax neef qabadka haddii neefta ay ku qabanayso ka caawin kara oo odayga aan u sameynayay intii guriga uu joogay magnesium oil haddaad isku buufisid oo xabadka halkaas naasaha iyana kaa taaban inta naasaha ka koreysa halkaas yar shafka aad ku shubatid wax yaroo magnesium ku masaajaysid iyo gadaal dhabarka garbaha gadaashooda aad magnesium ku masaajaysid oil muscleska ku relax garaynaysaa oo neeftan ku qabanaysa ayaad more relax dareemaysaa marka magnesium oil qofkii uu xanuunkan hayo oo guriga ku dhaxayo magnesium oil ha ka fakaro inuu isku masaajeeyo taas waa talo yar oo aan maxay to wax ka arkay gurigana inaad joogtaan ku dadaala inta aad kari kartaan dee haddii neefta ku qabato of course guri ma joogi karaysid oo inaad dhakhtar aadday noqonaysaa laakiin guriga wixii farsame aad ku qabsan kartaana ku qabsada insha Allah maxay ahayto waxana waa laga bixi doonaayo ilaahay waa naga wada badbaadin doonaa kulligeen videoga intaasaan kusoo koobayaa والسلام عليكم ورحمة الله.